dhalinyarada jufada reer oo Maxamuud ee beelweynta Dogoodiya Saransoor ayaa maanta yeeshay kulan ballaaran oo wada tashi iyadoo la tixgelinayo diyaar garowga iyo qorshaha la xiriira doorashada guud ee dalka laga filayo inay ka qabsoonto sanadka 2027. kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee dhalinyarada jufada ayaa diiradda lagu saaray doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan geedi socodka siyaasadda, horumarinta midnimada qoyska iyo sidii ay cod midaysan ugu yeelan lahaayeen arrimaha masiiriga ee quseeya beesha iyo guud ahaan dalka. Ka qaybgalayaashu waxay isweydaarsadeen fikrado kala duwan oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in dhalinyaradu yeeshaan aragti midaysan isla markaana ay si firfircoon uga qayb qaataan arrimaha siyaasadda iyo horumarka qoyska. Kadib kulanka qaar ka mid ah hoggaanka dhalinyarada warbaahinta Bayaan TV la hadlay ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid guul ka soo dhamaaday laguna gorfeynayo arrimo muhiim ah oo mustaqbal u ah beesha iyo kaalinta dhalinyarada ee doorashada soo socota. Waxayna sidoo kale carabka ku adkeeyeen in dhalinyarada reer oo Maxamuud ay ka go'an tahay inay xoojiyaan wadajirka, nabadda iyo ka qaybgalka hannaanka dimuqraadiyadda si ay uga miro dhaliyaan himilooyinka ay higsanayaan sanadaha soo socda. meeshan maanta waxa uu kulannay dhalinyarada cidda reer oo Maxamuud meeshan maanta ku kulantay. waxaan ku kulannay midnimada cidda sideen ku wanaajin lahayn oon u kulmi lahayn oon midnimada ugu shaqayn lahayn oo sideen horumar ku samaysan lahayn sida cid u nahnay sideen nolol fiican ku samaysan lahayn sida hoggaan fiican ku samaysan lahayn ayaan ka tashanaynaa. dhalinyarada maanta meeshan ay ku kulantay waxyaalo fara badan aan ka hadalnay taasoo ay tahay sideen midnimada ku hagaajin lahayn oon siyaasadda soo socoto sideen qayb wax leh ugu qaadan lahayn oo waxyaalo fara badan oo qaldan aan ka tashanay aan ka hagaajin lahayn taasaan ku tashanay. arrintan ayaa inaan sii wadna oo waqtiyaal badan aan sii wadna ayaan ku heshiinay aan insha Allah waxaan rajaynayaa 1 to 2 years to come arrimaha haddaan qaldan oo meel imid ka jira inaan dhalinyarada isku keeni doono oo sixi doono arrinta waxay laba ka qaldan oo dhaxdayna dhalinyarada reer Maxamuud ama isku maadi waxaana maaragtay ka wada hadalnay arrimo badan oo maaragtay fara badan hadda ma aan ku sheegi karin laakiin midnimada ay weyn tahay dhalinyarada cidda waana ku guuleysanay wax fara badan aan ka hadalnay waxaana baaq u dareynaa dhalinyarada kale maaragtay barga awood u waysay inay meeshan imaado waa maaragtay waa mahadsantiin idinka naftarkiina inta imaado waa mahadsan tahay inta noo ma doonto waa mahadsan tahay arrintan inaan saan ka maaragtay ka ballaarin doono oo si weyneyn doonana maaragtay waa u sheegaynaa maaragtay waa mahadsantiin. meeshan waxaan iskugu imaadnay unity midnimada cidda inaan ka wada hadalno maasha Allah waan ku soo guuleysanay inta dhiman waan rajaynaynaa inaan ku guuleysano. marka dhalinyarada waxaan kala talinayaa inay midnimada ka shaqeeyaan wanaagga ka shaqeeyaan alla ka cabsigan ay ku dadaalaan. Maxamed Kulmiye warbaahinta Bayaan TV Gudham magaalada Toomajeer.